السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idinku baraarujin lahaa in laga qayb qaato si wanaagsan oo dadaal badan masaajidka Masjidul Huda ee ku yaala bariga London muddo qabiyo ah marka masjidka ay masaajidada kaleba wixii aynu gelinaynaa waa wixii xaasil inoo ah ee akoonka Ilaahay inoogu jira ee aynaan ka warwarayn uu inaga lumo wixii kale oo dhan dad baynu uga tageynaa inaga dhaxlaya marka arinta aad baan ugu celcelinayaa masaajid badan waa ka qayb qaateen lacagna waa ku bixiseen waan ognahay dadaal badanna waa ku jirtaan walaalihiina Soomaalida gaar ahaan dadka dabadda laakiin waa inta inoo tirsano mar hadduu akoonka Ilaahay inoogu jiro jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum ilaahayna ha inagu anfaco wixii sadaqa aynu bixinayno hana inagu ilaaliyo dadkeena iyo dunyadeena iyo ubadkeenaba nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ballan qaaday qofka masjid dhisaya inuu ilaahay u dhisi doono guri jannada man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna idan qofka masaajid dhisaya wuxuu la mid yahay qof ilaahay la tijaaraysanaya oo sidii uu jannada guryaheeda fiican u heli lahaa tijaabinaya marka dadka muslimiinta guud ahaan waxaan ku codsanaynaa wixii masaajida ilaahay dartii loo dhisayo gacmo ku habboon dhisayaan in laga qayb qaato siiba kuwaasi dhulka gaalada ku yaala ee dadka muslimiinta tijaabinayaan inay taagaan ama dhisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii ha looga qayb qaato masjidka Al-Huda la yiraahdo waa masaajidkii ugu horeeyay ee dadka afka Soomaaliya ku hadla ay dhiseen masaajidada ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kasta oo laga dhisayo qofka islaamka waxa la doonayaa inuu ka qayb qaato waayo isaga ay u noqonaysaa sadaqad jaariya sadaqad soconaysa inta masaajidka lagu tukanayo ee lagu cibaadaysanayo ee caruur wax lagu barayo ee dumar wax lagu barayo waliba kuwan qurbaha gaar ahaan dhulka gaalada kuwan laga dhisayo ee lagu ilaalinayo dadka muslimiinta dhaqankooda iyo diintooda inuu aad uga qayb qaadano marka waxaan leeyahay meel kasta oo aad joogtaan Soomaaliya hala caawiyo masjidka Al-Huda garab iyo gaashaana ha loo noqdo hana loo hiiliyo maanta ayuu hiil u baahan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh